inaad password ugu samaysatid account-kaaga social media ku dhex leedahay kama damaanad qaadayso in account-kaagu noqdo mid aan lagu soo dhaweyn. laakiinse waxaa jira habab aanad ogeyn oo haddii aad buuxsatid uu toos ugu wareegi doono ammaanka account-kaagana shirkadda aad ka isticmaalaysid amba aad ku dhex leedahay account-gan aad hadda hawshiisa. Security alerts-ka social media-hu inta badan way soo shabahaan, waana system-ka inaga caawiya in shirkaddu inagula socodsiiso waxyaabaha qaldan ee laga dhex wada account-geena amba kaba dhex dhacaya. waana system-ka kaa saacida in lagugu ogeysiiyo haddii uu shakhsi isku dayo account-gaaga inuu soo galo ogolaanshiyo la'aan. mawduucan muuqaalkeenani wuxuu daaranaan doonaa labada barood ee kala ah TikTok iyo Facebook, kuwaas oo maalmihii u dambeeyay ay ka dhex socdeen dhaqdhaqaaqyo lagu waayay akoono muddo badan laga soo shaqaynayay, waqti badanna ku soo baxay meelo fiicanna maraya. ciid mubarak, kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. waxaan isku dayi doonaa inaynu fahanno systemka ilaalada Facebook iyo sidoo kale TikTok. sidoo kalena waxaynu samayn doonaa system adag oo inoo saamaxaya inuu account-geena noqdo mid xafidsan amba ay shirkaddu gacay naga siiso haddii account-geena la isku dayo inay badiyo si qaldan u adeegsadaan. haddaba maanta waxaan kuu tusi doonaa muuqaalkan laba hab oo aad ku ilaashan kartid TikTok account-kaaga iyo sidoo kale Facebook account-kaaga taleefankaaga gacanta. waxayna ka bilaabi doonaa barnaamijka loo yaqaano Facebook iyo systemkiisa iyo sidoo kale sidaynu u ogaan lahayn taleefanada ku xiriirsan Facebook-geena iyo sidoo ka saari lahayn iyo sidoo kale saynu buuxbuuxsan lahayn step verificationska uu leeyahay Facebook, kuwaas oo dhammaan social media loo wada yahay. haddaba balan soo aragno. haddaba ugu horreyn inoo soo fur application-ka Facebook. hadda application-kii Facebook ayaad soo furan doontaa ugu horreynta. kadib marka Facebook aad soo furatid waxaad iman doontaa dhinaca setting. haddaba setting markaan imaadno waxaa inoo soo bixi doonaa options aad u fara badan. ugu horreyn halkan ka bilaabi doonaa waxa weeyaan security and login. security and login markaan ka bilowno options fara badan baa inoo soo bixi doonaa. password bedeli doono, sidoo kale waxyaabo kale ma qaban doono, laakiinse waxaan samayn doonaa system-kan yar ee kooban. and login waxaa inoo soo baxay options aad u fara badan. haddii aynu ugu horreyno qaybta ugu sarreysa oo ah maxay ahayd ole halkii ayaa taleefanadu amba halkii ayaa account-kaaga laga logreeyay, bal sii moordhe waxaad arki doontaa haddii aynu sii moordhinaano dhammaan taleefanada account-kaaga lagu xidhiidhiyay. hadda account-kan isticmaalayo halkan waxaad ku arki kartaa ciidaas wax leeg oo account-kan lagu isticmaalay. laakiin si adigu account-kaaga saxaysa u xaqiiqsatid kaliya wuxuu baa lagu odhan doonaa active now. ka active now-ga amba calaamada active-ka saaran tahay waa kaagan amba account-kaagan. sidoo kale waxaa dhici kartaa inay noqdaan dhowr mobile active noqdaan amba dhowr nool oo diili kaga jiro, laakiin si kaliya wuxuu odhan doontaa clear baad odhan doontaa. haddaba hadda iminka waxaa inoo soo baxay mobile aad u fara badan oo ah in mobiladan oo dhan lagaga jiro. kaliya wuxuu baan odhan doonaa halka ay ku qoran tahay log out of all. haddaba markan log out of all yidhaahdo kaliya waxaa soo hari karaa password-kayga, waxaa ii soo hari karaa mobile-kayga ugu sarreeya ayuunbaa soo hari karaa. hab kale ayaad samayn doontaa iyagoo waxaas oo mobile ku jiraan ayuunbaad kaliya password ku dul bedeli kartaa. haddii aad iyagoo waxaas oo taleefon ku jiraan password ku dul bedeshid hal mar ayuu ka wada bixi doonaa oo mobiladoodii dibadda ayaa laga dhigi doonaa. halkan haddii aynu nimaadno waxaa kusii xigta labada option ee ah login-ka change password-ka iyo save your login information-ka. waan iska soo dhaafi doonaa. labadooda wuxuun bay ku quseeyaan account-kaaga caadiga iyo markaad soo gelisid in wixii information lagu save gareeyo si aanad markastoo aad soo gelisid password u gelin. haddaba waxaan tegi doonaa option-ka ay ku qoran tahay two factor. haddaba option-kan waa option-ka aynu u baahannahay amba aynu ku arki doono dhammaan social media intaynu ku dhex jirno barnaamijkeena security alert-ka. haddaba markaan soo galnay halkan waxaa inoo soo baxay laba option baa inoo soo kala baxay. inaynu isticmaali karno mobile-keena inaan ku soo galno haddii security-geena la khalkhal geliyo app amba Google-kan ku xiriirsan karno, iyo sidoo kale inaan ku isticmaali karno text message. haddaba halkan text message-ka haddii aad sii guda gashid kolley waxaa lagu ogolaan karaa inaad lambarkaaga ku xiriirsatid, waanaad samayn kartaa. option-kan isaga mar kale amba cashar kale oo dheer ayuu u baahan yahay, laakiin sidaan ku guda noqon doonaa halkaynu soconno ayaan qaban doonaa. option-ka kale aan kusii xigsiin doono amba inoogu xigi doonaa waxa weeyaan option-ka ah get alerts about unrecognized logins. haddaba halkan wuxuu ku leeyahay waxaad heshaa wicitaan amba marka uu rabo qof aan la aqoonsan amba aan la garanayn inuu isku dayo inuu soo galo account-kaaga. halkana wuxuun baad ka dhigan doontaa on ayaad ka dhigan doontaa. option-kana wuxuu kuu saamaxayaa in lagula soo socodsiiyo haddii taleefon aad hore ugu aqoonsan Facebook-gaaga
oo isku dayo inuu soo galo in lagula soo socodsiiyo message ahaan lagugu soo diro oo lagu yiraahdo waxaan kusii xigsiin doonaa barnaamijkeena kale ee TikTok iyo sidoo kale security-giisa. haddaba horaantiiba markaad barnaamijka TikTok soo furatid iyaduna sidoo kale waxay soo shabahdaa Facebook-ga iyo sidoo kale Gmail-ka amba email-ka. haddaba iyadana waxaad soo geli doontaa setting-ka ayaad soo geli doontaa amba waxaad soo geli doontaa halka ku qoran tahay setting and privacy. haddaba setting and privacy marka soo timaadid waxaad iman doontaa halka iyadana ku qoran tahay security and login ayaa toos u iman doontaa. security and login markan toos nimi durbadii waxa la inoo soo saaray 3 option baa la inoo soo saaray. 3 option waxa weeyaan optionka ugu sareeya waa security alerts. haddaba security alerts-ku isagu waa habkii aan hore soo sharaxnay oo kale kaliya waxa lagu la socodsiinayaa wixii qaladaada ee ka soo kordha xagga security-ga account-gaaga. hadduu rabo inuu qof isku dayo inuu dhaco, haddii uu qalad kale oo xagga shirkadda jiro, haddii uu rabo password-kaaga inuu qof kale mobile kala gashtay, intaas ayaad security alerts-ka halkan ku ogaan kartaa. optionka labaad aynu ka arki doono halkan waxa weeye waa manage devices. haddaba manage devices-kan wuxuu la mid yahay kii aan Facebook ku soo aragnay. manage devices-ku wuxuu kuu saamaxayaa inaad taleefanka aad maxay ahayd toolay ku hore uga gashay TikTok-taada kadibna aad kaga tagtay inaad ka saari kartid, amba haddii aad saaxiibada taleefanadooda ka gashid inaad adigoo aan taleefankii doondoonin aad hal mar taleefankaagan caadiga uga saari kartid. halkana waxaad arki kartaa inaad ka remove gareyn kartid amba awood u leedahay taleefanada kale ee ku meelaha kala yaala adoo taleefankaaga caadiga ah adeegsanaya. sidoo kale waxaa kusii xiga manage app permissions. haddaba manage app permissions-kii halkan waxaad dhici kartaa inaan aniga wax permission oo app aanan ka siin TikTok-teeda. tusaale ahaan oo kale permission waxa weeyaan awoodsiinta application kale inaad u ogolaatid inuu TikTok-taada wax ka dhex qabto amba account-kaaga wax ka dhex qabto. tusaale ahaan oo kale haddii aad rabtid inaad TikTok-taada robot ku xidhatid oo wax kuu soo post gareeyo ama drive-ka wax kuu geliyo, halkan oo kale waa halka laga siiyo permissions-ka. haddaba haddii aanad inta badan u isticmaalin account-gaaga application kale, halkan ayaad permissions-ka ka xuri kartaa amba ka siin kartaa. hadda waad aragtaa oo aniga wixii gu leeyahay ma jiro wax aba oo aad u ogolaatay ilaa hadda, waan iska dhaafi doonaa. habka kale ku xiga waxa weeyaan two step verification. halka lahaa Facebook two factor, halkan kan wuxuu leeyahay two step verification. Gmail-ka amba Google-ka wuxuu leeyahay three step verification. haddaba two step verification kan waa inay ku furnaadaan kaliya wuxuu baad sameyn doontaa qaybta ugu horeysa ee security method-ka ayaa waxaad sameyn doontaa marka ugu horeysa waxaad soo furan doontaa two step verification-ka on ka dhigan doontaa, kadibna halka ugu sareysa waxaad gelin doontaa email ayaad u isticmaali doontaa. kadib markaad email isticmaashid halkan ugu hooseysa ay ku qoran tahay add backup waxaad u isticmaali doontaa iyadana sidoo kale SMS amba number baad ku xiran doontaa si koodhka lagugu soo diro. haddaba haddii inta buuxbuuxsatid Facebook-gaaga iyo TikTok-taada waxay ka amaan heli doonaan inay dadku si fudud helaan password-kaaga kaliya aanad ku kalsoonaan karin password-kaaga. mararka qaar waxaa dhici karta inaad password-kaaga si toos u ilowdid, laakiin haddii labadan hab amba hababkan aad u furan tahay amba aad isticmaalisid waxaa awood u leedahay adigoo password-kaaga ilaawin account-kaaga dib u sii isticmaashid amba account-kaaga dib u sii ceshatid. haddaba sidoo kale waxaa jirtay arrin kale oo ka dhex socotay Facebook-ga oo arrintaas oo ah Facebook remembering. muuqaalka xiga insha Allah waxaan kaga hadli doonaa bal sida qof Facebook remembering-ka loo saaro iyo sidoo kale sababta loogu ogolaado in qof la remembering karo iyo sidoo kale sida ugu hortagi kartid. runtii waxaan ogsoonahay Facebook remembering kaliya loogu talagalay dadka dhintay oo kale amba account-yada laga guuray ee qofkii lahaa uu ka geeriyooday. haddaba sidee aad uga hortagi kartaa se qofku sidee ayuu qof kale remembering u saari karaa? sidaad u saartid qof kale remembering maxaa lagaaga baahan yahay? la socod muuqaalka xiga.